بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أنت كقدال waxaan maanta madashan isugu nimid inaan ka hadalno isla markaana aan bandhigno jihada iyo angalka aan ka taaganahay qadiyada ka aloosan geeska Afrika gaar ahaan gobolka Awdal qadiyadaas oo ka dhaxaysa dawladda Itoobiya iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka gacan ku rimiska ah ee ku dadaalaya inuu daba furo ama dhaawaco go'aanka ummadda Soomaaliyeed ay ka midaysan tahay iyo dawladda ummadda Soomaaliyeed ee ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waa dawladda kaliya ee Soomaali leedahay furan doona quraanka kariimka oo inoo akhrin doona Cabdi Sitaar يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نصروا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم إلهي أن نقف في القرآن الكريم وحن لا يحي أوضل أوجي يا أني أوجي يا أبا حيبا أبي سكوت كنولا النوام كنول هاي أوضل وادول كيجي أولادا دلو إيو وقت كي دلان إيو أنت يصير دلاني با يجونا سيدو كله أوضل وادول كوجي أوضل وادول كيجي أبترسي مضايديو أصل كيجو ماشو كو أرورويو أوضل وادول كيجي حندورتي أوجي ياتي أضاقي برتي لغو أستوريه لغو آسي ويان أوضل وادول كيجي أوضل وادول كيجي أحد سوهي شرودو أرد كيسي هويو كفق إهلادي سي ابتلاضو لبتاية هدي أوضل لغاكعو أني ما هروحي إيضادي دونا أوضل وادول كيجي waxaan ugu horeyn ku soo dhaweynayaa Suhayb Yacquub Xasan Diro ku hadli doona afka dhalinyarada الرحمن الرحيم aad baa u salaamintiin dhamaan marti sharafta quruxda badan ee ka soo qayb gashay asumaadana inoo asumeen odayaasha dhaqanka iyo guustambeedka reer Awdal ee ku dhaqan ama degan xaafadda Balaajistoon asumaadaas oo ahayd sidaan hore u sheegnay inaanu joogtayno oo kow iyo laba iyo saddex aanu ka hadalno inaanu ka dareenayno inayna badayadu iibahayn odayaasha dhaqanka waxaan leenahay iyagoo waalidiintayda way sharafsan yihiin waa Allah idin karaamay laakiinse ma aha maalintii mudaharaad magaalada ka dhaco in la soo ururiyo yiraahdaan maanta hadla in la yiraahdo ama inayna cidina soo adeegsan bilaadunkuna qofnimadu waxay ku jirtaa inuu qofka bilaadanka wax diido adeeraya waxaan leenahay inay wax diidno weey baddu waa maseerkayaga kuwa dhabarkayga ku jira weey ayaa bari ka manafaasanaya walaa Muuse ana go'aankeeda fulin karin walaa cid kale ana go'aankeeda fulin karin waxaan leeyahay maalin kasta hadli maynay badayada dhimashaanu ka xignaa cid iibin kartaa male cid dilaali kartaa male dadka go'aankeeda lana waa anaga adeerayaal waxa idin ku talin lahayn ama idin sheegi lahayn ka daaya ma taqaana maalin kasta in la soo ururiyo maalin kasta in meel la idin keeno oo la yiraahdo dhalinyaradiini kama masuulniin shalay si qurux badan ayaantii dhaweyd mudaharaad ba ka dhacay magaalada waa hadasheen oo la isku kinkeen waxa tiraahdeen kii mudaharaada anagu soo deyn meenayo masuul ka mid yihiin annaga adaa naga masuula badayadaas Itoobiya inaanu imanayn waan uga dhaaranaa awgeey baa uga dhaartay anagu maanta yeelmayno taariikhdeedu anagu badda dusheeda ayaan Ingiriiska kaga dul saxaanayna aanu soo gelin aga
dee tii baana laga baahan yahay inaynu ka jawaab celino kuwaasaan nahay aad baa u salaamantiin sida qiimaha badan ay ugu soo qayb gasheen waan islaam 186 markuu ingiriisku dhulka soo galiyay qabiil walba gaarkii buu la shiray gadabuursi tusaale ahaan meeshii uu heshiiska kala saxeexday waxay ahayd Sayla maalintuu ingiriisku soo galiyay awdal kalamu saxeexan dawlad kale kalamu saxeexan reer kale reerkii dhulka deganaa ee uu kala saxeexday waxay ahaayeen inaga inay taariikhdu isbedeshay waxaad arkaysaa 2024 markii Itoobiya doonaysay inay awdal soo gasho dadkii deganaa kalama heshiinaysa waxay kala heshiinaysaa dadka marka taas waxay cadeynaysaa dib u dhaca ku yimiday reer awdal waxaan marka xiga ku soo dhaweynayaa Cabdillaahi Daahir oo ku hadli doona afka odayada jaaliyada salaatu wasalaam ala rasuulillah عاوي بشوت هاي لباتنكي ما أنت بشوت هاي لباتنكي بشي كواد لبعض كوني أفريقيا لاتنكا وحنا نسوقون من جالية إيرلان قبل هذا سللي أوضل إن نكهد الله حال كان كسوة بيري منطقة دي جيز كأفريقيا سبيشالي سوماليا أرين كاسو بدل سي كودي جانوري لبعض كوني أفريقيا لاتنكا دولة إثيوبيا ويدو مركه هربا كل دارنا يسول هيد حوج يحيلد لبعض بقى وانكوه لا يبد taas baan ka hadlaynaa haddaanu nahay jaaliyadii iyo odayadii ba gobolka awdal iyo salal waxaan leenahay badayadu iib ma aha badayadu wax lagu qaadi karo shandad lagu qaadi karo meel la geysan karo ma aha Soomaali weyna dhan bay ugu soo wada jeesatay iyagana waxaan leenahay jazaakallahu khayr waad qabateen shaqadii leedinka sugayay ee walaalnimo waad qabateen in yar baan inoo hodhay inay dhamaato waxa weeyaan badayadu iib ma aha waxaan ka hadlaynaa gobolada dadkii deganaa cidna ilaa hadda laga hadlay oo loo fasilay ama heshiiskaasi wax alliye wuxuu yahay 20 kiiloomitir oo military la dejinayo ayaa la yiri halkaas baa lagu kala saxday Muuse iyo Abi taasina waxaan leenahay haddaan nahay odayadii halka ka soo jeeday goboladaasi galbeedka ma ogolin mana raacsanin waanu ka soo horjeednaa arrinkaasi badayaduna iib maaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan imika ku soo dhaweynaya Muscab Xirsi Cali بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد دمان طبعا سلام يا dadka ka soo qayb galay kulankan bilan ee aad ka quruxda badan soo ajiibay aad baad mahadsantiin dhamaan waxaan kaloo runtii u mahadnaqayaa dadkii isku hawlay oo runtii hawl badan oo soo socotay muddo dheer galiyay iyagana waan u mahadnaqayaa kulli arrintan waa laga wada dheregsan yahay marxalado badanna way soo martay oo ilaa bilowgii sanadka bay la kowsatay anigu waxaan yar jeclahay inaan horta bal xoogaa background arrintan geeska meesha ama gobolka ka jirta inaan iyaga ku bilaabo dadka wada degan ee ilaahay ku beeray waqooyiga oo Soomaaliland la isku ilaalo kulli dalkeenu markuu burburay waxay galeen heshiisyo nabadeed heshiisyadaasi waxa lagu unkay in nabad lagu wada noolaado dawladnimada lagu gaaro hase yeeshee waxaad moodaa muddo dheer kadib in jidka laga leexday dawladihii Soomaaliland ka jiray dhammaantood waxay ahaayeen dawlado in gaar ku danaysato oo danahooda gaarka ay ku qabsadaan waliba waxaad moodaa danaha ugu badan ee dadkaasi ay lahaayeen inuu dana dhaqaale u lahaa oo wadaniyad ay meesha ku jiray taas waxay dhashay in qabaa'ilkii ay dib muxuu ahaa u tabaan dawladii Soomaaliyeed ee la lumiyay ee uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste oo qof kasta oo Soomaaliyeed maanta meesha doonaa ku noolaado Hargeysa ku noolaado Burcaha ku noolaado aanu ka gaban inuu la soo istaago media ama meel kasta ummadda uu la wadaago in loo darsado dawladdaas iyadoo la qirayo sababtoo waxa lagu haystay nabad waxa lagu haystay horumar waxa lagu haystay warshado waxa lagu haystay caafimaad bilaasha maanta Soomaalidu dhibaatadii taa ay ka dhaxashay waxaan haysaa ma jirto hadda baan soo noqday mowduuca waxa weeye waxa dhacday in muxuu ahaa dawlad aan gudaheedaba ku filnayn oo qaybisay oo maanta aan ognahay in Soomaaliland marka laga hadlayo aanu barina joogin oo dadka bariga ay tashadeen oo danahoodii qabsadeen markay cadaalad ka waayeen dhibaato kale oo ka saartay ma jirto markay cadaalad ka waayeen waliba dulmi loogu daray runta hadii laga hadlo oo dil loogu daray oo wixii Siyaad Barre laga cabanayo wax ka daran loogu daray oo marka ummaduna wada arkaysa Soomaaliyeed
aamuskaasi wuxuu keenay qofkii meesha jooga inuu u fikiro inuu xorriyad mudlaqa leeyahay inuu wuxuu doono samayn karo taasaa keentay lagama hadal lama hor joogsan qofka bini'aadmiga haddaan maya la odhan waxay imanaysa dee inuu dadkaba inuu leeyahay sidii fircoon u fikiro u qaato taasunbaa keentay in dadkii markii la dhaafay in dee muxuu ahaa wax walba qofku uu iska maalin intuu iska duulo uu iska soo saxeexo arrintaa imika taagan ee saxeexa badda gobolka reer awdal wuxuu ahaa gobol runtii horumar u baahan oo nabad ah oo dekadaas lughayaad maanta inay dhistaan iyagu ku hamiyeyey oo dhaqaalaheedii urursaday oo lacag fiican meel u dhigay madaxweynaha hadda gobolkaas markay ula tageen inay intaasaanu haysanaa waxyaabo dadka inta badan ayna ogeyn wey maxaad ku darsanaysaa inuu habeen duulay oo cadaawo u keenay laakiin waxaanu ogeyn dhulka Soomaaliyeed inuu Soomaali dhan ka dhaxeeyo ilaahay baa dadka ku beeray laakiin badda iyo resource-ka ku jira oo aynaan ogeyn maxaa ku jira dawladda Soomaaliyeed oo dhan baa leh taasaana ka hor joogsan doonta hadii ilaahay dhaafo waxaan runtii u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii hawsha ay dhacday ilaa maanta aan fadhiisan oo caawa safarkiisii u dambeeyay aad ogeydeen inuu Qaahiro ku joogo dadaal badan geliyay caalamka tusay in meeshan aanu ka jirin gobol dawlad ka tirsan in aanu dawlad wax la seexan karin qof kastana waa ogyahay laakiin madax salaaxi badnaa ee dadkan la siiyay baa wuxuu keenay inay dawlad isku qaataan waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha in maalintii dhaweyd uu dareensiiyey inaanay dawlad ahayn laakiin walaalahooga Soomaaliyeed ay u tulayeen markii diyaaradda hawada laga celiyay qof kasta oo Hargeysa jooga oo been loo sheegay 30 sano oo la lahaa dawlad baa tahay oo dawlad isku haysta wuxuu aqoonsaday inuu nabadda iyo barwaaqada oo haysto uu ku haysto walaaltinimada naxariista iyo kalgacaylka oo u qabaan ummadda Soomaaliyeed waa laga joojin karaa wax kasta oo ay u baahan yihiin laakiin waa loo tulay waa inay garowsadaan dadku inay dad Soomaaliyeed yihiin inay dad walaalo ay yihiin in muxuu ahaa cidina ay cid kale markaa dhul maxaa ahayd ayna gumaysan karin maanta ayna ku fikiri karin qaabkaas oo kale u fikiri karin waxaan la wadaagayaa idinka iyo Soomaalida ay maqlaysa iyo adduunyadaba in dadkii maalintii dhaweyd soo baxay ee aad arkaysay in telefishinada laga daawaday ee sida ilbaxnimada leh u mudaharaaday in maalintii dambe gawaariinta la soo kaxaystay suuqa laga urursaday oo la xiray oo hadda ay jeel ku jiraan waxaan laakiin kow ka ah dulmiga noocaas dadka qaadanaya ee dalkii gudihiisii jooga ee gobolada jooga waxaan leeyahay war maalin baa la dhintaa maalina waa la noolaadaa laba jeer lama dhinto iska diida dulmiga diida waa diidi kartaa hadal baad ku diidi kartaa waxa weeyaan cid ku qasbaysan male laakiin haddaad aamusan tahay arrintaasi waa mid subxaanallah waxaan leeyahay war diida ilmihiina iska xidhan kibirka ku xidhan waxba ma aanay samaynin waa mudaharaadeen sabab loo xidhaa ma jirto diida kolley hadalka inaan dheereeyo ma rabin arrintaasina dadka la xidhay runtii aad baan uga tiirayeysanahay waxaan leenahay haddii la sii dayn waayo waxaan dhibaato ahayn oo laga faa'iidi doonaana ma jirto waan soo koobayaa waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed sidii ay maalintii dhaweyto u muujiyeen in ay dhulka iyo badda iyagu leeyihiin oo aanay qof si sharci darro ah oo qofka lagu sameeyay karin inay halkaa ka sii wadaan dadaalkooda iyaguna halkaa ku joojiyeen musabix laakiin isaga waxaan u sheegaynaa legitimacy aad ku saxeexdo dhul aad muxuu ahaa iska dhaafba dhul kale ama siinabe legitimacy ama sharciyada aad ku saxeexdid mid sharciya dadkan waxay ogolaayeen in loo keeno dekad commercial ah oo cidna ma diidana sida dekadaha kale reerkan dawladda Itoobiya laan loo kida haday tahay dalal badan baa dalalkaasi dhamaantood waxay ku raadsadaan sifo sharciya wal dalalka leh ee la jaarka ah bay dekada commercial la galaan marka dekad commercial ah oo sharciyada internationalka ah waafaqsan cid diidan ma laha laakiin tiraado dhul aan muxuu ahaa aan iska qaato oo iska soo dago anigu aan ku maamusho sharciga muuse ku saxayso adiga berito cidda ka kicinaysa haday ku yimaadaan bal adigu noo sheegada taadaba ku raacno sharciga aad halka tagayso legitimacy aad maxkamad ku tagayso lagu aqoonsanaanay adiga noo sheeg aqliga ha laga noqdo dadka ku daawanaya reer Hargeysa ama reer Burca ama dadka Soomaaliyeed ee meel walba jooga idinku waad garan kartaan intaas fadlan oo aqli celiya hal iska diido waxa dhibaato keenaya faa'iido ma lahayn
anigu waxaan aaminsanahay Somaliland laftigeeda burburkeedii inuu kaasi yahay sababtoo ah markaad wax aanad muxuu ahaa awoodiisa lahayn sharciyadiisa lahayn dhibaato ummadda oo aad gasho waxa weeyaan wixii kale aad haysay baad luminaysaa marka intaas aan kusoo koobaya وبالله التوفيق أدبا ما تنتهي كل ما السلام عليكم علي دوح baa wuxuu yiri markii uu bilaabay silsiladii guba uu la hadlay qamaan bulxan ninna uunka kama dawlad sanadir iyo daaroode ilaah baa dabkoodiya nasakhay danabyadoodii dadka ugu maliitaani way diriri waayeen anna waxaan leeyahay maanta Soomaali waa ay diriri waayeen waa ay dagaalami waayeen waxa la joogaa xaalad aan waxaan aaminsanahay xaaladda maanta taagan waa xaaladii Soomaali mideyn lahayd waayo waxaad arkaysaa markay xaaladdu bilaabatay magaalo kasta oo Soomaali leedahay Muqdisho laga mudaharaaday Burca laga mudaharaaday Hargeysa laga mudaharaaday waxa laga mudaharaaday Boorama waayo waxaynu ognahay damaca xabashigu leeyahay iyo dhibaatada uu ku hayn karo ummadda Soomaaliyeed waxaan hadda ku soo dhaweynayaa oo halkan inagala jooga maamul goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Nuur oo ma santiin dhamaantiin waxaan salaamayaa jaaliyada Ree Awdal shirka ugu xasuustay dhamaan waa salaamantiin rag iyo dumar waa salaamay qof walba ku salaamay maqaamkiisa magacayga hadaan iskeen barnaamij mar kale waxa leeyahay Cabdiraxmaan Maxamed Nuur waxaan ka soo jeedaa Jubbaland magaalada Kismaayo magaalada Xeebad waxaan deganahay magaalada Dandoog waxaan bartaa cilmiga badda marka waxaan isleeyahay howlaha caaw laga hadlay waa howlahaygi waxa afka qalaad lagu yiraahdo maritime and sea lives maadaama aan ka soo jeedo magaalada Xeebad koorsada sameeyaa marka waxaan rabaa inaan ka hadlo heshiiskii maamulka Somaliland oo la galay dawladda Ethiopia go'aankii dawladda Ethiopia dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay hawada dadka Soomaaliyeed maxaa la gudboon kuwa dalka jooga kuwa dibadda jooga African Union ka sidii uu arinta Soomaaliya iyo Somaliland iyo dawladda Ethiopia maxay ka sameeyeen maxaa dadkeena bulshadeena awooyadeena maxay arintan oo kale maxay ka sameeyeen number 1 marka qodobka hadii aan ka hadlo waa heshiiska heshiisiisa horta waxa gali kara wadan madax banaan oo la aqoonsan yahay Somaliland sida ognahay waa maamul oo self declared government afqalad lagu yiraahdo Soomaaliland waxa lagu yiraahdaa dawlad iyada iskeeda soo magacawday soo sideeda marka dawlad iyada iskeeda soo magacawday heshiis ma gali karto qodobka koowaad marka heshiiska sidaas uu baadil ku yahay heshiiska sidaas uu baadil ku yahay hadii ay for example hata waxa jira qodobo waxa jira adduunka leeyahay world orders hadii hata ay dawlad ahaan lahayd oo ay Ethiopia heshiis la gasho waxa dib ayaa u imaan lahaa ma garan karaan sababtoo dibku uma imaan karo waxa wadan markii adiga madax banaan tahay oo dawlad tahay heshiis hadii aad wadan kale la galayso wadankaas waa hadhow hadii ay heshiis la gasho inuu threat kaaga imaaneen for example had China oo kale iyo Qatar oo kale heshiis way la gali kareen sababtoo waa wadan ka fog laakiin Ethiopia oo landlocked ah oo bad aan haysan waligood ku taamay inay bad Soomaali leedahay iyo dhul Soomaali leedahay inay qaataan inay heshiis la galaan hadii hatta dawladda ay ahaan lahayd dhiba meesha ugu imaan lahaa go'aanka dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay hawada maalin dhaweedna waa go'aan la yiraahdo Chicago Convention ayaa la yiraahdaa go'aankaas 1943 ayaa la dhaqan galiyay dagaalkii labaad adduunka Hitler markuu meel walba weeraray oo diyaaradiis meel walba iska galayeen waxa fariistay qolooyinka allayga la yiraahdo ama huwanta Mareykanka iyo Faransiiska iyo inta la halmaashaba go'aan la soo saaray marka oo wadan inuu wadan kale diyaarad si sharci darro ayna u gali karin so marka dawladda Soomaaliya waa tahniideynaya maalin go'aankaas go'aan fiican ahaa in ay Ethiopia diyaaradeeda hawada ka celiyaan maxaa la gudboon marka dadka Soomaaliyeed qodobka saddexdan ka hadlay waxa weeye maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed kuwa dadka dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba dadka Soomaaliyeed waxa la gudboon arrinkan inay ka dagaalamaan afi ibdan bay arintan in laga dagaalamo sababta Ethiopia damaceedu waxa hadda bilowda ma aha wuxuu damacaan jiray 900 sano ka hor waxa markaas intaana ka hortaagnaa awooyadeen oo isticmaalay fallaar waran safe macdalay hadda adduunka oo sophisticated ah oo hub aan heli karno Soomaaliland hadda laga qaaday embargo laga qaaday ama ganaaxi laga qaaday hubka marka Ethiopia way riyootan leeyahay abiye oo oromna waa riyooday muusana waa riyooday riyadaasna ma soconayso
African Unionka sidoodaba wadanka Soomaaliya waa wadan Muslim ah, Ethiopia waa wadan Christian. African Union markii la waxaa u badan mostly wadamo Christian u badan. Hadda anaga wadankan taageeraya waa Eritrea iyo Djibouti xoogayada neutral iska. African Union iyaga laftirkooda waa eedeynayna sababtoo ah waxay u maleysay inay dhanka Ethiopia u janjeeraan. Marka waa soo gabagabeynaa hadduu la yiraahdo waxaan leeyahay Ethiopia way riyootay nimanka la yiraahdo Amxaarada Eritreanka oo ka raganimo badan oramada yaa badan ku dhici waa sababta waxa ka hortaagnaa awooyadeen annagoo hadda wax walba heli karna in oram oo kuwa ugu liita ah badan soo macnaha ay soo hunguriyaan waa horta waa daciifnimo Soomaaliyeed marka waxa la gaaray xilliga Soomaaliya hubkay qaadan lahayd oramada la isku dari lahaa oramada iyo wixii soo raacaba marka intaasan kaga baxay waa baasantiin jaaliyada odol maadaama shirka marta qaaday Ethiopia qorshaheedu wuxuu ahaa saddex badbidkood buu ahaa qorshaheeda koowaad markii ugu horeysay doonaysa waxay ahayd dekada casab ee ku taala Eritrea way iska celisay waxa kale oo damacsaneed Djibouti saddexaad ee damacsaneed waxay ahayd Lugaya oo kamid ah Soomaaliya waxaan u maleynayaa in Ethiopia ay tiri saddexdaa wadan markay eegtay labadan wadan ee kale sovereignty ba haystaan power ba haystaan dawladda dhisan ba haystaan waxay inay istiribaan u maleeyay Soomaaliya iyada ugu nugul oo kala jabsan oo laga qaadan karaa laakiin wuxuu ilaaway waxay ilowday Ethiopia in Soomaaliya ilaa gabdhahoodu halka gabadha Soomaaliga ay u dhigmi karto saddex nin oo xabashiya ilaa ka badan waxaan hadda ku soo dhaweynayaa waxaan ina xasuusinayaa maansadii hadraawi uu lahaa hablo weerar gali kara hablo geela dhicin kara hablo geesi dili kara geesteena mooye gay kale ma joogaan waxaan ku soo dhaweynayaa Ubax Ibrahim oo ku hadli doonta afka dumarka السلام عليكم دمعتي وانا سلامي دنيارتا اي مسؤولينتا inkastoo hadal hore loo soo yiri hadal badan haaba buuxsho aniga oo hadlaya dumarka jaaliyada gobolka Awdal ee Ireland waxaan baaq dheer diraynaa oo raali ka ahayn oo leenahay oo ku celcelinaa badayda iyo maahan waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye Sharmaake Xasan Axmed oo inoo sheegay doona aragtida halka uu ka taagan yahay isaga laftirkiisu bismillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka ugu horeysa waxaan iga mahadcelinayaa sida sharafta leh ee quruxda badan leh ugu soo qayb gasheen caawa anagoo ku hadlaya maaragtay afka raawdol raali kama nuhin is a wake up call waxa ingiriisku yiraahdaan waxaanu leenahay raga hurdada laga kaco waa xilligii midnimada waa xilligii la dagaalamiyay waa xilligii loo dirirayay waxa aynu leenahay iyo hantideena waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Xirsi way ku mahadsan yihiin akhyaarta meeshan noo soo qaban qaabiyay sida fiican u soo agaasimay iyo odayaasha nagu marti qaaday arrintan waa arrin Soomaaliyeed ma arrin Awdal iyo Kismaayo iyo Muqdisho iyo meel u taalo nin Soomaaliya hadda ka hor gabya ahaba wuxuu yiri soo waxaan ilaawaba nin xun ima ogeysiinin odagan horjoogaha u ah oromada waxbuuna xusuusinayaa waxaad moodaa Soomaalida mar walba oo ay hilmaamaan cadawgooda ninbaa u soo baxa xusuusiya aniga waxaan ka soo jeedaa gobolka Jubbada Hoose yarka dhalinyarada meeshuu ka soo jeedo magaalada Kismaayo awowgay saddexaad baa ku aasan laakiin sinjigayga waa Soomaali maalintay Kenya isku dayday inay ka hadasho badda Soomaaliya wiilka iyo gabadha iyo hooyada Soomaaliyeed ee Awdal joogo meeshay joogaan bay ka banaan baxeen Soomaalinimada ma aha wax la isa siiyay maanta waxa lagu soo duulay waa Soomaalinimadeeni waa diinteeni waa dhulkeeni cirkeeni iyo badeeni markay heerka gaarto wixii khilaaf oo gudaheena in laga hadlaba ma aha oo la sheego waxaan ka hadlaynaa waa niman Ethiopian ah oo naciibka ay Soomaali u qabaan qof walba Soomaali u og yahay Soomaalidana waxaan u sheegayaa Ethiopia weligeed ma heshiinin waan isu nasanaa arinta ogaada weligeed
waddankan hadda Ireland waa meeshii ugu shisheysay West 27 sanaan jooga waxaan malaynayaa dhalinyaro badan oo meeshan jooga mayan dhalaninba markaan imanayay waxaad moodaa mar walba aan hilmaamayno Soomaaliya oo ka sii fogaanaynaba qof baa na soo xusuusiyaa marka ninkan Oromayga ah wuu na soo xusuusinayaa Soomaalinimada jiilkan dambe hadda laga yaabo inay maamul goboleedyadan iyo waxyaabahan tuugada iyo federaalka noola sameeyay ay ku soo indhaqaadeen oo indhaha ku fureen iyagana waxay ogaanayaan cadaawadda Itoobiya iyo waxa la halmaala ay noo qabaan iyo dad ka dambeeyo hadda isqarinayaa jira ninka horjoogaha Oromada waxaan leeyahay intaadan Soomaali soo aadin tolkaaga soo warayso wixii ku dhacay Tigray soo weydii waxa ku dhacay 2006 oo aan intan ka sii tabardarayn waxaad soo weydiisaa Amxaaro ku horeysay 1000 sano isa soo dagaalayni meesha hadda waa la bixiye la leeyahayna waxay ahayd albaabka laga ilaaliyo Soomaaliya way tahay wayna ahaan doontaa insha Allah taala marka Soomaaliya waxaan idin sheegayaa arrintan arrin sahlan maaha waxaa la doonayaa qof walba in la gaarsiiyo meel walba in la gaarsiiyo arrintan waa in la isugu tagaa qof walba sidoo uga qayb qaadan karana uga qayb qaataa ha ka hadlina qofka Soomaaliga ah ee nimanka la safan lagama hadlo hadoo kale xilligan waa xilligii la difaaci lahaa wadanka oo laga hadli lahaa danta dadka iyo dalka waqtiga laga hadli lahaa waxaa dib u eegtaan dadkii la dagaalay gumaysiga in Cabdulle Xasan ahaado odayaashii ka sii horeysay ahaato Sheekh Bashiir oo lagu dilay magaalada Burca dhexdeeda ha ahaado dadkii la socday gumaystaha ee ay isku xilliga ahaayeen hal qof oo la sheegi ma maqasheen taariikh madow bay galeen kuwa maanta jooga ee nimanka la safana taariikh madow bay gali doonaan marka waxaa la idin ka rabaa dhalinyarada iyo odayaasha rag iyo haweenba in arrinta loo istaago aanan laga seexan habeen iyo maalinba dawladda Soomaaliya oo uu hogaamiyaha u yahay Xasan Sheekh mowqif cad bay ka istaageen hadalladooda way cadcad yihiin si fiican bay uga hadleen arrinta way Soomaaliyeeyeen meel weynna way gaarsiiyeen waad ku mahadsantihiin baan leenahay sidaa ku sii wada laakiin ficilna waa lidin ka rabaa cadawga waxyaabo badan ayuu isku dayayaa inuu sameeyo waxaan maqlayay maantii shalay in la leeyahay waxaa loo soo dirayaa nin dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya oo sidee loo dhexdhexaadin wadan baa wadan ku soo duulay dhexdhexaad meesha ma wax la yiraahdo ma jiro waa in la iska celiyaa waa in sida ay Soomaaliya siyaasadeeda hadda ku socoto lagu wadaa insha Allah khayr baan idin rajaynayaa وجزاكم الله خيرا dadkii nagu martiqaaday odayaashii reer awdalba waan idin garab taaganahay waxaan ka soo jeedaa meesha ugu dambeysay raiiskii Amboni laakiin Soomaali baan ahay arinta ogaada salaamu calaykum barakaatu waxaan kolka hore aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada iyo odayaasha runtii xafladan taata isku soo dubariday 20 maalmood baa ka soo wareegtay maalinkii heshiis ku sheega ay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ay kala saxideen aan isu nimaadno oo ka wada hadallo oo aan mowqifkeena aan muujino waa wax laga maarmaan way waxaan arrintan waa arrin Soomaaliyeed soo walaalka xirsi Sheekh Cabdiraxmaan sheegay Soomaaliga jooga Djibouti Soomaaliga jooga nogob ka jooga Gaaris iyo ka Soomaaliya gudaheeda joogaba isku si ay u taabanaysaa in biyaha Soomaaliya ay cidina soo faragashato khaasatan markay qofka soo faragashanaya uu yahay dad ay dagaal iyo cadowtinimo ay naga dhaxayso ma aha wax si fudud uu intuu soo qaato qalin uu u saxiixi karo ma marka waxaan rabaa aniga Cabdiwahaab ahaan anigoo runtii aad ugu faraxsan inaan meeshan aan joogno inaan fariimo dirno waa fariinta koowaad dawladda federaalka
waa ay ku mahadsan yihiin uu xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo go'aamada ay qaateen ee cadcad iyo sida ay arrinta u Soomaaliyeeyeen iyo sida ay fagaarayaasha diblomaasiyadda ay runtii goolal cadcad uga dhaliyeen oo ay Ethiopia ku fashiliyeen damaceedii ahaa in ay qalin been ah ay ku qaadato badda Soomaaliyeed aad iyo aad ugu mahadsan yihiin ummadda Soomaaliyeedna waxa la rabaa inay mowqifka isaga ay taageerto in aan la iskala qaybinin in aan muxuu ahaa gobol la isu kala qaybinin ee si Soomaalinimo ah badda loo difaaco suurtagal ma aha 1500 oo sano muxuu ahaa badii ay ummadda dhulkii ay ummadda Soomaaliyeed iyo awiyadeen ay difaacayeen maanta inaga oo aqoon-yahan leh odayaal leh hub leh dawlad leh jiritaan leh in uu si dhib yar loo qaado suurtagal ma mana dhacayso horena uma dhicin haddana ma dhacayso marka arrinta ayada in dawladda federaalka lagu garab istaago meel walba oo la joogana lagu taageero aad iyo aad baan muxuu ahaa aan soo dhaweynayaa waxa kale oo fariin u dirayaa dawlad goboleedada Soomaaliyeed oo laga yaabo qaarkood inay xiriir la leeyihiin Ethiopia oo hoosta laga soo galo kii arrinta soo dhaweeya ama xiriir la yeeshay Muuse Biixi kama duwanaanayo isku jid bay marayaan isku taariikh bay noqonayaan marka waxaan leeyahay dawlad goboleedadu waa in ay ku daba faylaan oo garab istaagaan dawladda Soomaaliya garab istaagaan sida ay u dhayihiinba ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtana inay muxuu ahaa iyaguna dawladooda garab istaagaan shacabkuna dhulkooda ilaashadaan kalsooni fara badan baan ku qabaa geesinimada iyo dadnimada ummadda Soomaaliyeed laakiin waxa laga yaabaa mid xun oo danaysta ah in la soo maro marka dadka Soomaaliyeed waa inay fiijignoodaan oo mar walba xuquuqdooda ay u taagnaadaan waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa la yiri gudin baa geed ku tiri waan ku gooyay markaasuu geedkii ku yiri haddaanu barkay kugu jirin imaad geyseen damaca Ethiopia ay ka leedahay Soomaaliya waxyaabaha sahlaya waa dad inaga mid ah oo inagu jira dadkaas oo leh damac hunguri iyo wax kale waxaan u sheegayaa Soomaali meel walba joogto ama Somaliland ha noqdo ama ha noqdo Djibouti ha noqdo ama Awdal State ha ka soo jeedo ama Jubaland ha ka soo jeedo ama Ogaadeen iyo Ethiopia qayb kamid ah ha noqdo Soomaali meel walba ay joogto dhiigana way kamidaysan tahay damacana way kamidaysan tahay qadiyadana way kamidaysan tahay waxaan imika ku soo dhaweynayaa walaalkay kulan وانا gobolada ugu jeclahay Soomaaliya hadalkii aan yiraahdo waa la yiri oo hadii uu Cabdi Sagar uu joogo in xis joogan waxa hadalkii waa wada qaatay arrintan waxa weeyaan u baahan in Soomaali qof kasta Soomaali sheegan inuu arrintan ka hadlo u baahan weeyaan aan doonaysa ka dhigdhoween oo ka dagaalano hadda waxa laga hadlayaa badda laakiin taa ka mid ah dhulka Soomaaliya meel kasta gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ah in ay dad shisheeye qaataan oo ka soo jeedna anigu waxaan deganahay Ireland magaalada Dublin baan deganahay magaalada waxa dhacday hadda aragteen xadka boorarka Dundalk iyo Ireland ba markaad boorarka daafaysid waxa lagu gartaa calaamadaha dhinaca yurub oo kamid ah yaa waxay soo gashay dhankan Ireland in yar waa in kamid ah taakafeerba marka dhammaanteen baa arrintan waxa weyaan arrin doonaysana ka hadalno ka doodno waan kasoo horjeednaa in badda Soomaaliya la qaato Soomaaliya oo dhan waxa weeye wax u taalo weeyaan reer wadanow garabkiina nahay meel kasta aan joogno waan taageeraynaa af iyo adinba kulamada noocaana aan badino ilaa inta qadiyadan ay istaagayso aan hadalno aan badino social media aan isticmaalno Twitterka aan isticmaalno dowladda Soomaaliya waa mahadcelinayaa boqorka ay ka istaagtay waa mahadsantihiin السلام عليكم دمان waxaan salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay iyo soo kale jaaliyada Awdal
ee gobolka awdal salad iyo gabiley ee isugu timiday munaasabadan inagoo mawduuceenu daaran yahay damaca badda ay ka yeelatay Itoobiya iyo soo kale kolay dhammaan waa la wada hadlay oo ana hadlay looma hadlo laba qodob baan halkan ka oran lahaa qodobka koowaad oo ku saabsan mas'uuliyiinta gobolka awdal ee ka tirsan xukuumadda Muuse Biixi iyo soo kale dhalinyarta gobolka haddaan ka horeeyo mas'uuliyiinta waxaan oran lahaa marka ay tahay dhul maaha waxaad ka raaci kartaan gurigiina iyo shaqada iyo waxaad qabanaysaan marka waxaynu oran lahaa inaad dhulkiina aaninad ka hormarin dantiina gaarka markaan soo laabto dhalinyartana waxaan leeyahay marka horena waxaynu ku kala mashquulin walba waxbuu taageeraa laakiin markay noqoto dalka waxaan laamid inaanu noqono hadda imika dhalinyar baa xidhan oo sabab ay ku xidhan yihiin ayna jirin taas inaynu ka hadalo in la soo sii daayana waanu codsanaynaa tiyo lagu haysto bilaa sabab dhalinyarta awdal waxaa la arkaysaa baraha bulshada iyadoo la leeyahay samaroon marka la dhaho waa dad aan waxba tarin waa dad aan dagaalamin waa dad aan hadli karin dhalinyartana waxaa hor joogaan sodhan karaa waxa weeyaan mas'uuliyiintii oo afka uga haya oo sharaftoodii dilay marka mas'uuliyiinta waxaa leeyahay dhalinyartiina la dareen noqda dalkooda si difaacanayaan ku garab istaaga aad baan idin salaamay assalaamu calaykum bismillahir rahmanir rahiim anigu ah Ibrahim Afgoye kamid ah dhalinyarada wadanka Ireland qaasatan Dublin arintan oo maartay ay dhacday in badda Soomaaliya la soo habaysto oo la rabo in xoog lagu qaato waan ka soo horjeednaa aniga qaasatan waxaan ka soo jeedaa koonfur galbeed laakiinse si walba ay noqoto koonfur galbeed ha noqoto meel aan meesha ka soo jeedin Soomaali waa Soomaali Soomaaliya dhan waxa xukumayso waa dawladda federaalka oo madaxweyne u yahay Hassan Sheikh Mahmoud waxaan leeyahay Hassan Sheikh Igeer marka badayna bacmaan badayna lama soo habaysan karo bismillahir rahmaanir rahiim taariikhda oo caawa ah 20kii bishii koowaad 2024 kulankii aan caawa ku yeelanay hakan madashan caawa ah waxa ka soo baxay qodobada xaggan inoogu qoran waxa aan xaggan idinku akhrinayaa qodobadii ka soo baxay kulanka caawa ee ku saabsanaa heshiis beenaadka badda annaga oo ah jaaliyadda awdal salal iyo gabiley ee dalkan Ireland iyo Soomaalida inteeda kale ee ka gilgilatay heshiiskaas badda waxaan cadeynaynaa inaanan taageersanayn ogolaana doonin wixii lagu sheegay isfahamka qayrul sharciga ahaa ee 1 January 2024 lagu saxeexay Addis Ababa waxa aan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee sida geesinimada leh u gutay waajibaadkii ka saarnaa ilaalinta iyo difaaca dhulka Soomaaliyeed iyo hanka Soomaaliyeed ee maamulka Muuse sida qayral mas'uulnimada ah isugu dayay inuu dhaxal wareejiyo in aanu awood sharci u lahayn maamul deegaan bixinta dhulka baaxadaas leh ee isugu jira bad iyo bariba oo ah dhul Soomaaliyeed qodobka afaraad waxaan bogaadinaynaa dadkii Soomaaliyeed ee isugu soo baxay muujiyayna dareenkooda carada iyo diidmada ahaa ee ka soo baxay magaalooyinka Boorama Lughaya Burco Hargeysa iyo Muqdisho iyo meel kasta oo ay Soomaali degtaba waxa aan u mahadnaqaynaa golaha shacabka Soomaaliyeed ee ka diidiyay si degdeg ahna isku hortaag ku sameeyay buriyayna heshiiskii sharci darrada ahaa ee Muuse Biixi la saxeexay Abiy Ahmed waxa aan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba ku wargelinaynaa in maamulka Somaliland ee gacan ku rimiska ah uu kula kacay xarig sharci darro ah dhalinyartii dareenkooda sida nabadda ugu cabiray ee u soo baxay fagaarayaasha waaweyn ee Boorama si loo caburiyo loogana baqo
loona boqogeliyo in dhulkaas Soomaaliyeed ee iyagana Ilaahay deegaanka uga dhigay loogu xalaaleeyo cadow dad aanan ina ogoleyn iyada oo dano gaar ah iyo qandaraasyo aan isku halayn lahayn sharci iyo mid jiritaan mustaqbal lahayn la weydaarsado qodobka toddobaad oo ah qodobkii ugu dambeeyay ee aan isla afgaranay waxa aan hambalyeeynaa una mahadnaqaynaa ururada IGAD jaamacadda Carabta iyo midowga Afrika iyo dhammaan dalalkii kale ee ka soo saaray qaraarada iyo warbixinaha ku daadafeeyeen xadgudubka Itoobiya ee dhulka Soomaaliyeed waxaanu leenahay waar Soomaaliyay reer awdalow yeynaan ilaawin 1984 xasuuqii ay Itoobiya ka geysatay magaalada Boorama iyo ardaydii yaryara ee lagu duqeeyay iskuulada Aloog iyo Labantariga yeynaan ilaawin marnaba wad mahadsantiin warahmatullahi wabarakatuh. The community of Awdal, Salil, Gabile in Ireland organized a gathering on the 20th of January in Dublin, Ireland. The purpose of this gathering was to discuss the recent submissions from our home region, Awdal, and the non-binding Memorandum of Understanding, MOU, known as signed by Musa Bihi and Abiy, the Prime Minister of Ethiopia. And at the end of this discussion, we agreed to send this message to the world and all concerned parties. 1. We strongly oppose the non-binding agreement signed by Musa Bihi and clarify here that he has no legitimate or mandate to give away an inch of Awdal coastal region or any other land for that matter. Secondly, we would like to thank the Somali Federal Government President, His Honor Dr. Hassan Sheikh Mohamud, for his tireless efforts he has made to protect our home country from the uncertainty future consequences that could result from the unclear and illegal MOU Mr. Bihi signed, which gives away a part of our homeland and sea to Ethiopia. We are thankful to the Somali masses who went out to the road peacefully in Borama, Bura, Hargeisa, and Mogadishu to show their anger and frustration with respect to the land and sea annexation attempt by Ethiopia regime. Fourthly, we are thankful to IGAD for their extraordinary summit held on the 18th of January, which highlights the importance of the territorial integrity of Somalia, clearly stating that it must be respected, as well as all countries and organizations that call Ethiopia to respect the territorial integrity of Somalia, of the Somali federal government. And lastly, we would like to inform the Somali federal government and the human rights organization in Somaliland, Somalia, that peaceful young protesters were arrested in an attempt to silence and hinder their freedom. And that concludes our day. Thank you very much. Nice. البحر ما دي دراد الدربان